بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إلهي تبارك وتعالى نحريستيس وحاكمده يديق ديسا تريد أن نطريه وحاكمده إنه نوتشي ودوينك تركينا ينفتينا أنكو إلالين لهين. waxaan rabaa naftayda iyo tiinima inaan la wadaago cajaa'ibta iyo layaabkay leedahay suuratulbaqara oo ka mida qur'aanka kariimka ah suuradda labaad ee musxafka. suuraddan cajaa'ibta ku dhex jirta ku dhex duugan ee in badanoo bulshadeenna ka mida ay ka jaahil yihiin ayaan rabaa inaan u soo gudbiyo cajaa'ibtaasoo ay ka sheegeen culimmadii hore wax badan. suuratulbaqara qofkii ilaaliya akhrinteeda muddo dheer oo isku xigta insha allahu tacaala noloshiisa wuxuu ku arki doonaa cajab iyo layaab, jirkiisana wuxuu ka dareemi doonaa caafimaad ay saahaysan dadka kale, irsaaqadiisana wuxuu ka dareemayaa siyaado ay sahaysan dadka kale, laabtiisa wuxuu ka dareemayaa qalbigiisa waasicnimo ay dadka kale haysan, cumrigiisa iyo da'diisana ilaahay waa u barakaynayaa noloshiisa tabaaraka wa tacaala. waa qofka suuratulbaqara akhrinteeda soo celceliya oo ilaaliya muddo dheer insha allahu tacaala. xayaatadiisa iyo noloshiisa arrimo cajiib ah farxad geliya ayuu ku arki doonaa. dhammaanteenna allaha nagu hagaajiya taas. qofka ilaaliya akhrinta suuratulbaqara qalbigiisa farxad aysan qulubta kala haysan ayuu dareemayaa. khayraad tiro badan iyo barakooyin aad u tiro badan oo iska soo dabadhacaya ayuu noloshiisa ku dhex arkayaa. aniga iyo adiga aynu ka mid noqonno dadka u saaxiibkaa suuratulbaqara, dadka weheshada suuratulbaqara, dadka jecel suuratulbaqara, dadka u hilooba suuratulbaqara aynu ka mid noqonno. wakhti badan aannu siinno suuratulbaqara, wakhtigeennaasoo aan meelo kale ku dilnay. ku dulnagow isbuuciyo ama bilo ama sannado suuratulbaqara adoo hamiin kasta akhrinaya. xanuunka markaas ku haya ilaahay caafimaad buu kuugu beddelayaa. ciriiriga markaas aad dareemaysid ilaahay faraj iyo farxad buu kuugu beddelayaa. culayska markaa aad dareemaysidna fudayd buu ilaahay kuugu beddelayaa. barakaduna way iskaga kaasoo dabadhacaysaa dhinac kasta iyadoo ka imaanaysa. noloshaadu marka waxay noqonaysaa nolol farxad iyo khayr iyo baraka leh insha allahu tacaala. waxaad burburisaa oo eber ka dhigtaa khiyaaliga gudahaada ku jira. maxaad ku burburinaysaa suuratulbaqara? ilaahay arrinkaada waa sahlayaa, wuu ku noolaynayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala. ducadaadana waa ajiibayaa. nebigeenna waxaa laga wariyey calayhi salaatu wasalaam akhduhaa baraka inuu yidhi suuratulbaqara qaadashadeedu waa barako, yacnii akhrinteeda, xifdinteeda iyo ku dadaalkeeda baraka ayaad ku helaysaa. barakadaasoo ilaahay kuu dhex dhigo ehelkaada, maalkaada, carruurtaada, jidhkaada, naftaada, dhammaan waxaa kula xidhiidha. idan akhduhaa baraka. suuratulbaqara waxay la mid noqon kartaa xabbad timir ah. timirta dhadhankeeda iyo macaankeeda ma dareemi kartid ilaa aad calalisid oo afka gashatid mooyaane. idan suuratulbaqara soo celcelinteeda badan iyo nafta inaad ku qasabtid inay akhriso oo ku dadaasho akhrinteeda noloshaada insha allahu tacaalaa waxay dareemi doontaa macaanka ay leedahay suuraddaas. le'anna dad badan wahsi baa geli kara. suuradda intaa la eg ee qur-aanka ugu dheer miyaan soo celcelin karaa, intaa akhrin karaa oo hameen khatimi karaa? taasi waa nafya shaydaan waxay kuu sheegeen. dhexgal suuratulbaqara. markaad dhex gashood oo dhamisid macaankeeda daqiiqad kasta iyo saacad kasta waad khatimaysaa. adigaan baa marka dambe lagaa celin doonin le'anna waad dhadhamisay. qofka suuratulbaqara akhrinteeda soo celceliya wuxuu heli doonaa insha allahu tacaalaa khayr aad u tiro badan oo aan koobid lahayn. ilaahayna shar badan buu uga difaacayaa uuso addoonkan ogayn. manaafic badan baa ku jirta suuraddan oo qof caaqil ah ama caqli leh uusa ka maarmin. akhrinta suuratulbaqara oo aad soo celcelisid naftana kula dadaashid qalbiga qallalan waxay u soo jiidaysaa inuu qoyo, addoonkana uu dhadhamiyo macaankay leedahay cibaadada iyo suuratulbaqara. naftaadaa kula noolaanaysa ayadoo edebsan oo la nadiifiyey. qalbigaaduna wuxuu noqonayaa
mid u nugul wanaagga. in badan dadku waxay ka cawdaan xanuunnada ishu ay keento, xasadka uu keeno, sixirku u keeno ee jidhka bini'aadanka loo sababo. way ka cawdaan wayna sheegaan, dadkiina waa ku dhex faafeen arrimahaas iyo cudurradaas. laakiin waxaa ogaataan suuratulbaqara inay tahay dubbaha keliya ee cudurradaas lagu garaaci karo, ee jejebinaysa, ee ka adkaanaysa cudurradaasoo dhan. rubbamaa laga yaabaa akhrinta suuratulbaqara bilowga ama markaad bilaabaysid ama arrintu kugu cusub tahay inay kugu cuslaato, li'anna shaytaan iyo inta u adeegtay waxay og yihiin, weliba si dhab ay u og yihiin nafciga iyo wanaagga ku jira suuraddan inay aad u wen yihiin. marka dooni maya shaydaanku nafcigan inaad wax ka goosatid, wuu kaa wahsigelinayaa, wuu kaa mashquulinayaa. ma suuraddana akhrin kartaa buu ku leeyahay, li'anna shaydaan uu og yahay suuratulbaqara qiimahay leedahay. qiimahaas inaad wax ka faa'iidid ayuu diidayaa shaydaanku. markaa suuratulbaqara la qabsatid akhrinteeda iyo soo celcelinteeda iyo macaankeeda, dhinac kale u tijaabi. 2 ragcoo salaatuleyla ku tuko muddo 2 bilooda adoo suuratulbaqara akhrinaya, ama wax ka siyaadsanba. 2 ragcadood suuradda u kala goo, suuratu wadduxaa ama suurad kaloo u dhiganta ku khatin oo ku witri. ilaahay wuxuu kuu furi doonaa albaabada risqiga dhammaan iyo caafimaadka. imaamkii hore la odhan jiray ibnualqayim aljawsiya caleyh raxmatullaah wuxuu yidhi, isha iyo xasadka waa cudur yar oo midka wax xaasidaya uu jidhka qofka uu xasidayo dhex geliyo oo uu ku tuuro, mana suuliyo xasadkaas iyo xumaantaas, mana tirtiro, mana fogeeyo ilaa suuratulbaqara inaad akhrisatid oo soo celcelisi mooyaane, iyo mucaawadataanka suuradaha loo yaqaan. suuratulbaqara sirta ku jirta waxaa weeye inay madaxa ka jejebiso shayaadiinta, murugooyinkana ay fayddo. waxaad arkaysaa dad badan oo gargaraacaya ama u socda meelaha cilaajiyada lagu tilmaamo, kuwaasoo ka cabanaya murugo, jin, il, xasad iyo waxa la midkaa. laakiin dadkaasi waxay garab dhaafeen inay gargaraacaan albaabka suuratulbaqara oo cudurradaasoo dhan ka adag. qofka suuratulbaqara akhrinteeda soo celceliya xasanaadkiisu ma dhammaadaan. suuratulbaqara idanka ilaahay hammi kasta iyo dhibaato kastoo ku soo wajahda ilaahay sabab wuxuuga dhigaa faraj inaad heshid. cidhiiri kastoo ku soo wajahana makhraj meelaad uga baxday inuu ilaahay ku siin doono ayuu suuratulbaqara sabab uga dhigaa ilaahay tabaaraka wa tacaala. bele kastana iyo dhibaato kastoo kugu dhacdana caafimaad waxa uu ah suuratulbaqara. laakiin dadka in badanoo ka mid ah oo naftaydu ku jirto arrimahaasi ma oga. nasalullaha alcaafiya. ducada iyo allabariga kadib nimcooyinka iyo wanaagga waxaa soo jeedaya khayrka tirada badan waa suuratulbaqara inaad akhrisid. suuratulbaqara hamiga noloshaad ka leedahay bay ku xaqiijinaysaa. suuratulbaqara waxay legdaysaa oo meesha ka saaraysaa xumaan kasta oo lagula damco. way kaa cayrinaysaa shayaadiinta, awhaamta ayay kaa nadiifinaysaa. waxay gubaysaa buuraha murugada ee aad ku dul nooshahay. dadka naftoodu ay quusatay, murugadaay ku dhex nool yihiin iyo quusigay ku dhex nool yihiin ayay suuratulbaqara gubaysaa oo faydaysaa. rasuulkeenna maxaa laga wariyey markuu tilmaamayay suuratulbaqara, akhduhaa baraka wa tarkuhaa xasara. qaadashada suuratulbaqara waa barako, ka tegitaankeeduna waa qoomamo iyo shallaytin. kuwa shaqola'aanta sixirka iyo xumaanta ka shaqaysta suuratulbaqara way dhibsanayaan. idan suuratulbaqara ku gub. marka waa baraka suuratulbaqara inaynu laasimno akhrinteeda, ku camalfalkeeda, iyo inaannu ku dadaalno u fiirsashadeeda, iyo inaan xifdinno oo aynu soo celcelino qiraa'adkeeda iyo akhrinteeda. ilaahay dhinac kasta nolosheenna wuxuu ka dhigayaa mid wanaagsan. suuratulbaqara in laga tago waa qoomamo wey, in laga jeesto oo la aaminin inay tahay suurad baraka badan. qofkaasi maalin maalmaha ka mid ayuu ka qoomamayn doonaa arrintaas. qofka ka taga daawadiisa waa qof la kadiyey weeye, li'anna suuratulbaqara xanuun kastay daawo u tahay. hadday kaaga sheekeeyaan sixirka iyo saaxiriinta, jinka iyo shayaadiinta kaaga sheekeeyaan, xasadka, walwalka iyo xumaanta ay kaaga sheekeeyaan, adna waxaad u sheegtaa soo celcelinta suuratulbaqara in la akhriyo. waxaasoo dhan bay dagaandigta ka dhigaysaa oo faydaysaa. dadku hadday kaaga warramaan arrimaha wax fajiciya ama xanuunnada aadka u daran ay kaaga sheekeeyaan, adna waxaad oga sheekaysaa khayraadka tirada badan iyo barakooyinka aadka u badan ee suuratulbaqara ay leedahay. 1 saaxiriinta ka mid ah hadday kulmaan oo ay allifaan 1 sixir
kama adkaan karaan daawada ay hayso ee ilaahay u geliyey iyo sirta ilaahay dhex dhigay suuratulbaqara kama adkaan karaan. suuratulbaqara arrimaheedu iyo sirteedu waa arrin cajiib ah. suuratulbaqara inaad soo celcelisa akhrinteeda jidhkaada dhufays buu ilaahay siinayaa iyo ilaalo oo xumaan kasta aysa dhibayn. xaaqidiinta iyo kuwa uurka xumaanta kugu haya iyo saaxiriintu waxba kuuma geysan karaan. in la ilaaliyo akhrinta suuratulbaqara qofka waxay u soo jeedayaan inshaa allahu tacaala noloshuu raadinayey dhinac kastoo noloshiisa ilaahay bara ku dhigaya. marka waxaa la rabaa inaan soo celcelinno in badan akhrinta suuratulbaqara oo nolol aan ka dhigno. wanaaggeeda kama dhargi karno. waa ku farxaynaa cajaa'ibta iyo sirta aan ka helayno suuratulbaqara. qof ka maarmana ma jiro. qur-aanka dhammaantii waa barako, laakiin suuratulbaqara barakooyinka qur-aanka ku jira ayadaa madax u ah. in qofku u badiyo suuratulbaqara akhrinteeda jidhkiisa waxaa ilaahay ka saarayaa xumaanta noocyadeeda kala duwan. naftaaduna waa degaysaa. qofka daa'ima akhrinta suuratulbaqara noloshiisa inta badan riyo wanaagsan buu arkayaa xataa markuu riyoonayo. haddaad uga sheekaysid naftaada akhrinta suuratulbaqara xasuustaa yar aad soo qaadayba shaydaan intuu soo boodo ayuu wuxuu ku xasuusinayaa cajsi iyo mashquul aan jirin, le'anna uu og yahay faa'iidada ku jirta suuratulbaqara. suuratulbaqara haddaad laasimtid shaydaan wuxuu og yahay inaad ka adkaanaysid. shaydaan inaad ka adkaatina shaydaan ma rabo. haddaad go'aan qaadatid ilaahayna kaalmaysatid suuratulbaqarana akhrisatid saaxiibna aad la noqotid ilaahay xaggiisa waxaa kaaga imaanaya kaalmo aada filayn. habeen iyo maalin 24 saac khatim suuratulbaqara. hal fadhi ama fadhiyo kala duwan. hami iyo murugo toona maalintaada iyo hameenkaadaas ku soo wajihi mayaan inshaa allahu tacaala. wakhti kasta nolosheenna aynu ka dhiganno akhrinta suuratulbaqara inshaa allahu tacaalaa nolosheenna isbeddel wanaagsan ayaan ku arkaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaalaa. ilaahyaana wada fahansiiyo asraarta iyo cajaa'ibta ku jirta qur-aankan kariimka ah, gaar ahaan suuratulbaqara. suuratulbaqara qofka la saaxiibka ah ma hooga adduun iyo aakhiro. ilaahay ha naga dhigo kuwa ka faa'iida suuratulbaqara kuna camal fala ikhlaas iyo ilaahay dartiina arrintaa u samaynaya. intaas ayaan doonayey naftayda iyo tiinaba inaan xasuusiyo. lacalla laga yaabaa in noloshan maanta ee murugaysan ee dad badan muruga haysato inuu ilaahay ku faydo tabaaraka wa tacaala. arrintaas waa dhibic yar oo ka mid ah badda cajaa'ibta ah ee suuraddan ay leedahay ee culummadu ay nooga soo saareen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.